Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society haligina siyo no society nabada kula wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena hadahan oo kale aynu isugu iman jirnay ee garwaaqso barnaamijkeena alaba waxaynu ku eegnaa xubno kala duwan ama goobo kala duwan ayaynu booqanaa toddobaadkan barnaamijkeena waxa inoogu martiya wiilkii ugu daada yaraa intaas aan barnaamijka waday garwaaqso waa wiil 17 jira isla markaasina dhigta dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali wiilka yar oo magaciisa la yiraahdo Cabdirashiid Maxamed Ibrahim waa wiil ku dhashay magaalada Hargeysa isla markaasina dugsigii hoose dhexe ku qaatay isla magaalada Hargeysa imikana ku jira dugsigii sare Cabdirashiid waa wiil isagu soo bandhigay hibooyinka ku jira mid kamida sidaynu wada ognahay qof kasta oo ibn aadani wuxuu leeyahay hibo ilaahay siiyay hibadaasi oo qofba uu si uga faa'iideysto hibadiisa wiilka daada yar ee Cabdirashiid waxa weeye in uu wax ikhtiraco oo uu soo bandhigo waxa markaasi uu ku arko sheeko ama shaahid in uu ka dhigo wax la taaban karo Cabdirashiid waxa uu sameeyay waxyaabo kala duwan oo aynu barnaamijka xagiisa dambe ku arki doono waxa kale oo aynu barnaamijkeena ku qaadan doona ama aynu ku arki doona qaar kamida Cabdirashiid saaxiibadii oo dabcan iskuulka la dhigta bal hadda si uu arkayaan hibooyinka uu ku soo bandhigay iskuulka iyo dabcan waxa uu kaga duwan yahay dareenka ay ka qabaan barnaamijkeena toddobaadkan arintaasi ayaynu ku qaada dhigi doona isla markaasina ku ogaan doona daawadayaal guud ahaanteen waa fariin runtii nagu wada socota oo ah daayirteena ama qof kasto oo inaga mid ah bulshada reer Somaliland oo hibadiisa keena in ay la barbar istaagaan wixii ay awoodi karayaan Cabdirashiidna dabcan uu inoo sheegi doona daawadayaal sidaan idin sheegay arintaas ayaynu barnaamijkeena ku qaada dhigi doona daawasho wanaagsan Cabdirashiid wiil daayar baa tahay sida aan warka ku hayo waxaan oo alaabayno hortaala adiga sameeyay bal ka waran goorma ayaad istir waxbaad sameyn kartaa horta bismillaahir rahmaanir rahiim markood ilaahay baa mahad leh horta qalabkan man imaka wax igu bilow maaha ilaa birigan yaraa markii ayaan sameyn jiray waxyaabo aan ku ciyaaro aan sameyn jiray laakiin imaka ayaan bilaabay inaan soo hirgeliyo oo wax waaweyn oo qalab oo shaqeynayaan sameeyo waayahay yaraantaadi baad xiiseen jirtay imikana 12 jir baa tahay inkastoo aad u sii weyneyn haddana alaabtan aad sameysay maxaa kuu fududeeyay maxaa la ama markii kuugu horeysay aad shay sameysay goorma ahayd birigan yaraan dhaxeed waxaan sameyn jiray gaari baakadole waxay ciyaar ku ciyaaraan kaas ay igu horeeyay wax ay fududeeyeen waxa weeyaan horta xaniyada la raawon hayaa mood marka qalabka markaan sameeyo xirfadeeda aniga meel la diro gelin hadana marka waxaan niyada ku qabtay inaan sameeyo waan sameyn karaa iyadoo sidee ka qurux badan ayaan sameyn karaa marka aad sameynaysid sidoo kale muddo intee lag ba ku qaaday inta badan horta arday baan wax dhigtaa dhinaca wax ka sameeyaa moogta marka waxyaabahan sameeyo ma soo iibsado moog
markaan soo helo wixii ka dhinna ayuun baan ku sameeyaa muddo cayiman kuma sameeyo markaan soo helo wixii ka dhinna ayuun baan markaa intay qabyadu hawshaas qabyaytay ayuun baan wadaawn waan sameeyaa markaan waxa uu soo helo soo dhammaystiro ayuun baan sameeyaa مثلا قلب كمان أركيا وحيس وجران قلب إلكترونيكا مركب بهالك كموقدا كبا موقدا أذجع من مدن وشرح دونا إن مملك إسكول كوكله مركي أيكو أركان إن أدوحن سمين كرتو يجي لفتركو كسده وأركان إن أرتا وحرك إنه وحصار صار كرا إن دنيرة إن مع أرتدا يوم معلمين تيا مملك لما ودي رجلين إن وحنا نقول اللي جريان إن أنت وحكي بدنا صار صاروا إن هم يجينا من السير وجرسي يقول رجلي عبد الرشيد قلب كان شرح قلب كان باريس كوبا اللي هذا إن معلك فيزيكسك أيام معلم الحسين نودي 10 كباريس كوب نودي إن أرد آدمي فاهمين مرايدية وحاسو مركي وحوين بما حسين لسه قلني إن أنا مركا وحن تعالين أنا أرد صوص سمايو إن وين صوص سماي إن مركا وحلا استعمال بدة إلى هذا بدة كوتشيسكي إلى هذا بدأ استعماشة مركب بدأ كوتشرو يا أنت إن لقى بيا لقى صارية تدنا هل كانوا بوحكارك يا أنت نحقه سقف مر كوتشرو أيو كي يا حاجة نكارك يا حاجة الله بحاجة لاد أونلاين تيا كوتشرة حاجة مراد بكيش حاجة مراد بكيش إن حاجة معلك مجلس بك قرر نردقة فيزيكسك وكالكولس ليرا مجلس عادي محمد ليرا هذا حاجة نبيرس كوبا قرر وبهاش مجلس حاجة معمولها مجلس قرر علي أحمد بلايح بدينت هلا بك وقعدت إن وحي وقعت هرت معنا الأربعة أيوم معنا كنا كحسدا نقول لك جار هانجلاس كي كتوه إن مركها نيدا كوقفتين السمايو لا بدي عشاء وحسوس ما أنت أربعة دقيقة كذي وحن بلعب مركز سكول كروحي إن لا بيطمن كي إن لا بدي مركيو أحد دمي خميس تيو دمي إن لكن وحي رقل ويرشنشي نعنا لقى قري إن شنشيه لابد إن على شوي يرقل وعي لكن ويقل شيء الصبح نمدي السبت ده سكول هلوس ونقضينا وان كان مركز سكول دوبو وحوي لبع عشاء هي قادت لبع عشاء واللي بس حلو من سمينين مركز أنت يرقل تشيني كل بو تشيني لكن وحكي ربنا قصة مكري مركز عادي واي عبد الرشيد بهال كانت سمسي وحوين إذا ماذا بدو كلا استعماله وبدل لو أديك سنة سلا إمك وجهي إذا مدينا بدو ما استعمال كرا ها إنك كان ده أردن بالله قلت لك عليه لكن يسوي كوين ولا سمين كريا متر سكوير لا متر سكوير ولا سمين كريا إن أو مراكب تأكفلن ولا سمين كريا كان أرضي تصالها من به تصالوي لكن كان كوين وات سمين كرا ها سمين كرا واي waxaan filayaa in ciidamada baddo ay ku daawanayaan iyo taliyahoogu waxaan rajaynayaa inay soo dalban doonaan kan waa markab tan waa artificial oo isaga xiray oo maraakibtii biriga hore ku socon jirtay hawada iyo lagu xiri jiray sharaaqyada waaweyn marka waa sharaaqyada waaweyn oo markii biriga hore dabaysha lagu socon jiray ay ku socon jireen imkana tan uu ku soconaya حقن هو سبعة كحرن أو بيوه مجرية إن وكاس ما كان سميني كان حقن سيدا أنت يروح بدون سمين لعبة يقعد كاتي إن وحاو وقت ما كوبيحيي إن دور شهر وانكو جولسين وهاي لكن مركز دبوا كو جولسين تايران سميو إن حقن هو عدد سكال غيرين يا ومركي بيو كور مدني موجودو سي آير سكال عفان أي أفكان هرلو دوبيا إن ساسو شقينيا قريان أفني حاجة نبوا كافشح وحلي بالكي وحلي إن آكي 47 كا إن وشنير الحرب بالله هذا أو قرياك متى ولا جو سارة مركز رساس الرئيس هكذا قشر هكذا كسب بودا
qumucuna xagan ka baxaa moogti marka ay qasharka dhaafo dhuunta fadhiisto ayaa qorigu ma dhacayo marka xagana laga soo geliya xarbida waa laga soo ridaa fuurida marka xagana ka soo dhacaysa والحرب على مركا حلوة تلقى مركا يبهاش كافوجات أيها لقطة تلقى وايه عبد الرشيد ولي ما أركت قوري الريديو إن محنر هذا أمام محنر هذا ده لقوا بس سماين إن كستود الكينا ده عن لقوا بس سماينين لكن سيدي أيات كوك أنت إن قوري كانوا كلا سماين كرتو أقول أنت لك بتكهيستي إن أقول هذا بدن كمان سن لكن مركا ميجا تجا أي أراسيد ميجا يلقي ردا سأقول الله فرفورة ينوار الفريق قسنديس marka markii aad aragtay ayaad istirood sameyn kartaa imka qoriga wax walba u dhameystireen miya wuxuu isdhimayaa dhicisto ka dhiman in kale mid kale sameeyo isaguna caadiyo la gelinayo leefkan la gelinayaa gariiratu leeyahay isagana in yar ba ka dhiman oo gariirtada in yar bu tuuriya waan xoogeynayaa leefkana lagu tala galay inuu tuuro عبد الرشيد مركا waxba inagu tuurana ardayna oo dhex joognaaye way marka qoriga saasad ku dhameysay halkan waxa weeyaan agana way qoriga saasad ku dhameystiran yahay wal cabayso way bal agabkan kalena waxaan arkayaa halkan maxaa dhadaa gurbiyadii guriga la sudayay way bal qalinka noo sharax qalinkan narta waxaan u keenay maalimihii aan tuu soo wareegay bishii 9aad ayaan macallin Cali Baleexo keenay maamulaha iskuulka qalinkan uu qorayaa kan uu isku yaala oo saddex nooc buu qorayaa kana waa goonidiisa taas u shaqeynaya labadaas shaqeynaya way qorayaan afartoo oo imika waxa leedahay qalimaantan oo shaqeynaya way shaqeynayaan waxay leeyihiin baalkii raad jeeb dalgashanay waxaan arkayaa qalinku inuu xaggan sare ka yahay loox wada loox dhuunta ayaa la dolinayaa dhuux yar baa la gelinayaa dacar baan doonay inaan ku shubo laakiin dacarta magaaladu waa biyo way qalalaysaa marka lagu shubo marka in yar qorto waqti dheer ma joogayso way qalalaysaa khadka waa dacar lagu shubo saasi afarta midho noocaas u qoraya marka khad kale hadii lagu keeno waad ku shubi kartaa waa lagu shubi karaa حتى وحول لي ماشي هذا تشيك القشني أو صو سمايسة قال إن كلفتي سكورا مدين تلا فقاتي سمينتيسا سيد بفكرتين القاب نوع عنو كلا سمايسة إن مركز هرارت واحد سمي نوعية كلا قليمانة دكتور دوبن إن مركز إيران قلين أفر نوع أما صدق نوع سكحلن عن سمية أيان دور بدي إن وأنا كقولتي طبعا نشقادين كبدنا قليمانة سمين كريا كان أنا كلا ونشقادين كان ونشقاد كان ونشقاد جارة إن طبعا نشقادين كبدنا ما سمين كريه قلن كيف ما معلم بقرة تام مسكير مسك بالن وقت كامل ما هي إن وقت جارة ما سميه جو ما ده إن مد بجار ما سميه هدن دوني أنا صدق قلن سميه مرك هراء وانسود جوجويا مردوم ولا قرقرة لكن وقت بدن مرك قلن كهاي ما قادري حتى هو حوالنا في وضع نشقليسه شنو عمري قلن كسمورة ده عمري إن واي معمولها هو الموريسان دونا هذه دو كان إن بل هذا قلب كل كلامه وحوجا هلكم حنك أركيا توريبا كأركيا إن توردن إذا أنا والله قلب كنت بدن الله بانك السماء إن رنتي بالمري صدق جيس بالله توردن أنا كلا حاجة نجيس كلها إن مركا إذا أتأجر هذه قال كنا بسمع والله الله بانك السماء الله ويا إن بقى كواهن يلاقي كان يو إن كواهنا يجنا وكواه كمدين صاركا إن حاجة هالسو وحويها إن ودبهات الجوارد القنصير ويان إن حاجة اللي تكاد لحق كتير وحويان شركان كدين عيس يعني كسمي أنت يرنا وين يربوش الله تعالى حرقا ما حرق أسود ساسو كلا لكن حرق لك عن تلقصه هالروبان دين عيس وجلي ساس سكو حرين وحن كلا وعاجر ير إن سكيمة وسوي جوجوي حاجة إن هوستا ما كان شركان كذا كجترة حاجة لحد شركان كجترة
حقنا وطشة حقنا waxaa ku jira حسوا هاي لبضن marka hore xariga markaan soo hay waxaan ku dhajiyay caaga markaan caaga ku dhajiyay aan caagii isku dhajiyay buushan sare isku xabkiyay ayaan tan hoos soo qabtay xagan bir baa kaga jirta birta waxaan ku xiray qaansiirin hoose dabahadka caaguna siisu toosnaa isagoo mar daban caagii isaga ku qiyaasay isku dhajiyay waan isku tolay wixii dheeraad ah waan ka gooyay xagan bir baa kaga jirta oo soo xoodii soo haysa marka kabahani waxay u eegeen ama waxay yihiin bakaba yoogi waagi hore ee la xiran jiray jaangiriga kabidii dhaqan soo saarka badan waxaan rajeynayaa in loo aayo doono shacabka reer Soomaaliland in badan oo kale talentigaas kugu jiro oo kale ay ku jiro ardayana way jiraan iyagana waan rajeynayaa inaad sidaad u soo bandhigtay oo kale ay u soo bandhigaan bal hadda leerkan waxa weeyaan shan lambadood iyo lambada hoose oo kan waxa lagu talagalay iftiinka inuu iyadu bixiso shantan midha kale iyaga qurux baa lagu talagalay kan ku ka badan waan sameyn karayaayo ka lambada badan xagan waa lambad weyn waa dabeedii xumaatay oo labada xarig ma ka soo qaatay imika marka lagama talaalayo saas baa loo gelinayaa fadhigii caadi xagana gulubka laga gelinaya uu haynaya marka fadhiga saa looga xidho ma tijaabisay shaqeynaya way shaqeynayaan shantaba meel qura laga wada baqtinaya oo baarla meel qura laga wada baqtin حاجة إلكترونية سمنتي سمات كوفي عندي إلكترونية دي وان سمين كريا وحي إلكتروني كتنا والله واصف waxa lagu talagalay dagaalkii waxa asxaabi biriga ku dagaalami jiray xagan waxa lagu talagalay marka seefsaas ku dhacayaan inay ka qabato labadanba seefta ta hoosiyada sare way ka qabanayaan xagan dambe waxa lagu talagalay inaanay kaasiyo marka hadii dhidido aan wax wada xooga hawsha ku wado inaanay ka baxsan baa lagu talagalay xagan ay seef ka qabato baasha xagan waa girgiro waxay muddo waxa la doonayaa inaanay si dhalo uga baxsan iyadoo dhaawac badan gaarsiin weeyaan xagan dib marka caadi soo socota waa caadi laakiin marka xagad ay sadib looga soo jeedo ay soo qabsanaysaa marka dhaawac gaarsiin saweeyada bal hadda kana waa waran laba waa waranka laba nooc midna balxaaf baa la yiraahdaa midna migni balxaaf marka waa ka balxaafku waa kan dhinaca kule afka kule oo hadii saad ku saraya kana waa loox marka migniga waa ka dhuuban isaguna marka labadaba wax loo sameyn karaa baashan eebada la yiraahdaa tan dib u jeeda markii wax muddo ayaa la doonayay inaan si dheer uga soo bixin dib uga soo bixin marka way qabanaysaa wixii way ka qabanaysaa tan wayla aloo tagay inaan dib uga bixin kana waa golxab isagana hidii dhaqankii waxa golxabka waa marka hore seef iyo toori iyo golxab la qaadan jiray marka golxabku waa tooridu ka weeyay marka golxabka isaga seefta ka dhinaca loo galiya tooridu saas loo jiifiya way waa agabkii dadkii hore ku dagaaltagi jireen way Cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay xiisadaha aad ugu jeceshahay markaynu joogno iskuulka ama maadada ugu jeceshahay waatee maadada Soomaaliga maalinka cilmi la dhigo aan ku jecelahay Soomaaliga ma sha Allah waa afkeena hooyo
horta anagu guud ahaanba macallimiinta haddaanu nahay iyo maamulayaasha ardayda marmar baanu tartan iyo wax u yar qabanaa marmar baanu gabayo ku tartansiinaa marmar baanu ciyaar ku tartansiinaa ama waxbarashadaba dabeeto markaanu tartanka abuurayno ayaa qof waliba uu laabta la soo kacayo wixii uu hibo u lahaa ayaa ku soo baxaya anigu ardaygan aqoon hore uma lahayn qoyskoodana isma naqaano wuxuu ii sheegay maaragtay ardaygu class 1A la yiraahdo ku jiray markay gelinka hore soo noqdeen ay soo wareegeen markii hore gelinka dambe ay dhiganayeen ardayda iyaga soo cuneen markii gelinka hore ay soo wareegeen ayaanu tartamo qabanay dabeed inanku maalintii tartan kadib wixii keenay qalinkan hadiyad iga soo dhigay macallin qalin baan hayaa aan sameeyay oon adigana ku keenay buu yiri kartoonka yar buu dabadii dhiibay waaban furayba dabeed waxa iga soo baxday laba qalin oo midkan yahay loox ka samaysan yahay oo adan miyuu qoraya ha dabeetana waaban ku qorayba oo ii qoray kan kale haddana la soo baxay kan kale waxa uu leeyahay meeshii jeebada la gashanayay isna uu ii qoray dabeetana jeebadaaban geliyay sida kuwaygan kale ayaan geliyay waxay noqotay arrin xiiso leh waxa ay soo jiidatay hadduu imika qalin ii soo iibin lahaa inanku maan xiiseeyeen laakiin waxa xiiso gaar ah ii noqotay qalinkan alaabtii Soomaalida ka samaysan ayaa aad iyo aad ii xiiso gelisay dabeed waxaan isiriba waaban dhowrtayo khaanadan ku ritaayo iyo ka maranin imika sanad baan hay marka inanka markii aan arkay wax soo saarkiisii anigu hadiyadii waxaan ugu bedelay inaan ila adeer balbilaash ku dhigo iyo magaca Cabdirashiid baa la yiraahdaa kalaaskaas aad tahay Soomaha bal adeer bilaash wax kale ma sameyn kartaa ha waxyaabo kale aan sameeyay bal waaye bilaash horta ku dhiga baan ku yiri ha iskuulka fiigi baan ka dhaafay maalintii dambe ayaa waxa jira masaxada yar oo nalaga iibiyo oo nalaga siiyo $1 oo soo iibsano maalin baan ku wari dabeeto masaxad ma soo sameyn kartaa ha buu yiri bal waxa soo sameeyay baan 10 masaxadood oo qurux badan oo de sawirada qalin baan badan ku qoraa qalinkan whiteboard marker kan isticmaalaa وانا كايب سنه دبيتو uu keenay muddo kadib uu keenay masaxadihii oo qayb caaga iyo rabad iyo buush yar isku soo sameeyay iyo wax oo si fiican laakiin uu shaqeynaya inankii dawlad waxa waan iri anaga $1 baan laga siin jiray $2 baan ka sanaya anoo ogaanu qaale dhiirigelaya kii la soo dejinayay la soo cashuurayay ayaan inay ka qaalisantahay baaban tusayo anoo مثلا bookshop kaga soo helaya intan ayaan tan ama stationery kaga soo helaya ayaan ka siistay sababtoo waxa weey ardayda dhexdeedana ku siiyay kalaaska dhexdiisii $20 bay noqoto 20kii baan kalaaska dhexdiisa inuu waa inaan xishood badan oo mabu jeclayne ana ii qaado ana uga jeeda ardayda kale inay maaragtay ha qofku inuu wixii wax ku helo ayaa xiiseynaysa marka doonaysa inuu hiiga maaragtay ha dabeed intaas markay dhacday ayaa maalintii dambe macallinkan physics-ka ayaa wuxuu sharxay wax la yiraahdo periscope inta badan ciidamada badda ayaa ku shaqeeya waa telescope ama waa maaragtay diirad aynu raano af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa diirad waxa laga yaabaa in dadku wada fahmin maaragtay marka la periscope ama laakiin diirad baa la yiraahdaa oo marka macallinku wuxuu u sharxay in ilayska marka hore wax lagu arko dabeeto xataa badda hoosteeda ama meel gidaar dabadii inaad wax ka arki karto oo waxa gidaarka xagga ka ka maraya aad arki karto iyo qaabka loo arko ciidamada badduba ay marmar wax u arkaan oo meel fog ay wax ku arki karaan dabeetana ciidamada gujisada badda ayaa iyagoo badda quusaya ayaa waxay soo saaraan wax la yiraahdo periscope
oo dhuun yaroo qalloocda oo caynkana oo halkaa way ka dalooshaa halkana way ka dalooshaa labadan baa waxaa kaga jira muraayado angala 45 u xidhan dabeeto marka ilaysku halkaa ka soo galo sidaasuu u soo raacaya sidan u soo raacay ishaadiibuu imanaya marka imika anigu haddii aan imika miiskan hoosta ka galo waxaan arki karayaa inamada halkaa fadhiya ayaan si hawl yar u arki karayaa oo halkan ayaan ka arkayaa marka waxa weeye inankii markii kalaaskii oo dhan baa loo sharxay soo sameeyana macallinku muu odhan laakiin markii loo sharxay inanku wuxuu qaatay sawirkii macallinku uu sabuuradda ku qoray ku sawiray iyo macnihii buu isla dhuuxay dabeetana wuxuu yidhi talow alaabtan aad haysato waa siliig iyo qori looxaan laysu geeyey dhexdana muraayad la geliyey halkaa iyo halkaana ka daloola halkaana muraayad laga geliyey dabeed muraayadahaas isu dhiibaya sawirkii iyo ilayskii marka dabeed subaxii dambaba dhowr subax kadibba wuu noo keenay isagoo dhinacan kaga soo qoray macallinka magaciisii dhinacanna beeriskoobkii macallinku sheegay ku qoray oo ah macnii diiraddii xaggana maxamuud cali kaga soo qoray dabeeto macallinkii markuu u keenay annagu ii keenay oo dabeetana sidii baan arkay arrin xiisan waxaa markaa judhi bay igu soo dhacday wallaahi in badan baa beeriskoobun ka sheekaynaysayni laab kaba dhig dabeeto kan waxaan idhi laabkaa leh qalabkan waa qalab mar walba ardaydii lagu tusi karo maalintii oo dhan ardaydoo safka taagan baanu lahayn bal qof walba wax ku eeg qoladan gobolka wasaaradda waxbarashadana waan tusay oo gudoomiyaha waxbarashada intaan gidaar fadhiisiyey baan baldaaqada halkaa ka eeg halkaa yaree daloosha ayaa laga eegayaa dabeetana halkaasna sawirka ayaa ku dhacaya dabeetana sawirkii adigu halkanaad ka arkaysaa adigoo gidaarka hoostiisii fadhiya marka arrin shaqaynaysa bay noqotay waa arrin imika teliskoobada noocana qofku isagoo dhufays ku jira ayuu wax ku eegi karaa dhufayskunbuu kan ka soo saarayaao waa lagu tababari karaa ciidanka imika waxaa kaloo dee loo adeegsan karaa ardayda baa wax lagu tusi karaa ciidamada baddu haddii imika laga sameeyo bir annagu loox baanu ka samaynay haddii imika intan bir laga dhigo oo bir laga dhigo muraayadana la dhex geliyo waxaa dhici karaysa inaan biyuna qoynin macnihii adigoo gudaha badda ku jira inaad arki karto wax shaqadii ku qabanayso marka anigu ujeeddada koowaad aanu ka lahayn waxay noqotay markaasuu inankii waxyaabo badanoo guriga ku ciyaari jiruu hindisi jirayna markuu ama wax daawado ama uu buug akhriyo ama wax looga sheekeeyo inuu wixii sameeyo yararkeenu tv-ga markay ka daawadaan inta badan waxbay sameeyaan markabkan oo kale waa ka sameeyey dabeed maalin kalaaskoodu xaflad lahaaba ay isu habar wacdeenoo way soo bandhigeen ilan kalaasyadu markay tartamayaan kalaas waliba annagana hebel baa nugu jira baa la odhanayaa arrintii arrin xiisa badan bay noqotay oo ay madaxdii wasaaraddu xiisaynayso anigii aan xiisaynayo tiifiyadii qaranku ay xiisaynayaan waana sharaf iyo magacna haddii qofkii wax la sii taro oo la sii caawiyana waxaad sonaysaa ama qalab maaragtay dabeeto aniga waxaa markaa igu soo dhacday waxaaban xusuustay berihii kacaankii warshadaha markuu bilaabmayey kacaankii warshadaha ayaa waxaa laysu keenay ingiriiska wuxuu isu keenay tumaalihiisii suuqa fadhiyey iyo dadkii birta farsamada gacanta yaqaanay iyo saynisyahanadiisii dabeetana waxaa la yidhi wakhtigaa dharka soo saarkiisa ama dunta wixii lagu miiqi lahaa cudbiga ayaa maaragtay aad iyo aad dhibaato uga haysatay dadka oo dee gacanta laguma miiqi karayn waxaa la yidhi ha la sameeyo wax dunta inoo miiqa oo dabeetana dharka dabeeto labadii markii qoladii aqoonta lahayd iyo laysu keenay iyo ayay soo saareen mashiinkii ugu horreeyey ee dunta miiqayay saas waa meelihii kacaanka warshaduhu ka bilaabmay dabeeto waxaabaad is odhanaysaaba war dadka haddii lagu jiheeyo inay ka abuuri karaan qalabada iyo dhirta ay haystaan wax oo fikirkoodu shaqeeya waxaa laga heli karaa dad badan oo wax ogaan kara caruurtuna wax badan bay ogaan kartaa oo lama odhan karo ardayeer oo wax baranaya wax ma ogaan karo waxaa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray Sir Isaac Newton cufisjiidka markuu ka hadlayay isagoo ardaya ayuu ogaaday weliba arday markaa xariifa mu ahayn macallinkii baa isagoo eriyay gees iska hoos fadhiistay isagoo yarniyas jabsan dabeetana xabad tufaaxa soo dhacday xabadii tufaaxayd buu ka fikiro talo maxay xaggaaba ugu duuli weyday arrintiisay markii dambe u wareegaysay wuxuu ogaaday in dhulku leeyahay cufisjiid amaba uu soo jiito wixii ama ashiyaaduba ay cufisjiid ka dhexeeyo
dabeeto isagoo ardayba arrintii waxay noqotay arrin weyn oo maaragtay xagga sayniska meel ka gashay marka haddaynu caruurteenna dhiiri gelinno iyo dadkeenna farsamo yaqaanada ah oo xitaa kuwa geerashyadu ku jiraan waxaa la heli karaa wax lagaga raysto wax badan oo maanta dibadda inooga yimaada waayahay maamule wasaaradda waxbarashadu sidee uga warhaysaa arrinkan runtii dee curadka ah ee waxaynu caalamka mar walba waxbaa dhaca dhallinyarada adduunku waxbay keenaan sida cabdirashiid oo kale waynu daawanay yarkii maxaan idhaahdaa berigii dhowatoole maraykanka lagu xidhay ee suudaaniga ahaa arrintii uu sameeyey sidee dowladeenna iyo khaasatan wasaaradda waxbarashadu ay uga warhaysaa xaqiiq ahaan horta ilaa heer gobol baanu iminka ogeysiinay laakiin waxaanu isku dayaynaa inaanu wasiirkana u sheegno haddii alla ilaanu tusno inaanu madaxda kale ee dowladdana tusno hadday noo suuro gasho waxaa jira dowladdeennu waxay leedahay maaragtay qolo la yidhaahdo cilmi baadhista iyo maaragtay oo technology cilmi baadhista technologiyada cilmi baadhista la yiraahdo cilmi baadhistu waa inay ku jirtaa wax soo saarka oo mesela invention ama ikhtiraacida ma jiraan waa inaynu isweydiinaa ma jiraan cid wax ikhtiraaci karta oo wax soo saari karta ama wax hore oo de uba samaysnaa markabku wax hore u samaysnaa oo de la sameeyay weey laakiin ma alifi karaa qofku wax u eg ama caruurteenu waad ogtahay maanta caalamka warshado dhan baa u samaysan inay caruurtu waxay ku ciyaarto iibiso oo soo saara oo waxyaabo yaroo hadday gaari yaro ordaya tahay baytari ku shaqaynaya hadday ku kale oo dee la iska riixanaya tahayba maaragtay marka dee macnaheedu kolba qaabka aynu inagu u dhigno ayay wixii itaalkoodu noqonaya laakiin anagu ma jeclin inaanu sheelo ma jeclin waxaanu jecelahay inaanu wax soo saarkiisa sheegno waayahay aad baad mahadsan tahay kama dambayn fariinta aad halkan uga dirayso guud ahaanba shacabka iyo dowladda maxay tahay waxaan uga dirayaa xaqiiq ahaan dhallinyarta anigu dee dhallinyarta aad iyo aad aan uga shaqeeyaa horta dowladda waxaan u dirayaa dowlad curdinaynu nahay qof kasta oo wax alifi karaya waa inaynu dhiirigelinaa taasi waa guud ahaan madaxda aniga iga bilowdo iyo wixii ka sarreeyaba iyo macallinkaba dhallinyartana waxaan leeyahay dhallinyaray haddaa iimaansataan waddanka oo maskaxda iyo indhaha eegaya inuu qaxoonti ka noqdo yurub haddaad soo jeedisaan oo waddanka u soo jeedisaan wax alla waxa keentaan baanu diyaar u nahay inaanu idinka iibsanno marka waddankiina ku jeediya indhaha qof walba bal maskaxdan ilaahay ku siiyey iyo talentka iyo hibada ilaahay ku siiyey natus haddaad ordi karto haddaad ciyaari karto haddaad dabaalan karto haddaad boodo dhisan karto haddaad sida inankan alaab samayn karto xataa alaabta waanu kaa iibsanayna aniga ugu liito waan kaa iibsanaya marka waxaan doonaynaa inay noqoto aqoontuna hadday wax soo saarto waa fiican tahay midda kale cilmiga barashadiisa waxa ugu fiican ka degaankaaga ku bara iminka inankan degaankiisii buu wax ka sameeyey degaanku waa waxyaabaha kugu xeeran maaha in alaab laguu soo dhoofiyo iminka inankan markuu waran samaynayey alaabtii ku xeerayd inbuu sameeyey markuu beriscopekan samaynayey looxii iyo waxyaabihii la heli karayey ayuu ka sameeyey ee yaallay ma garanaysaa marka waxa weeye waa alaabtaa degaanka laga sameeyey waa wax afka qalaad ay ku yidhaahdaan local made marka waxa weeye haddaynu markaa wax abuuro iminka inankan bal dhaqankana waa kan yidhi sabjagaasaan jeclay waxaana doonaya hadduu fysiska jeclaado bal macallinka fysikskan ku xidhaya si gaara ugu xidhaya inuu injineerba noqdo goordhow iminka yararku waxay ugu yeedhaan injineer cabdirashiid inanka uu soo saaray injineerka cabdirashiid maxamed ibraahim alaabta baratikaalka ay ahayd waxyaabaha aad ku qaali ah
oo aad ugu dhiirigelinayna kamid ah waxa kamid ah waxa barata kale aad nugu qaalahayd bahash aan dhiganay oo maadada physics-ka ku dhiganay oo leeyahay periscope oo macalinku samuurada nugu sawiray ayaa waxa aad unaga yahay bahash caankeediya oo dad gidaarka xaqiisa soke isku qabatid waxa xaga shisha ka taagan arkisid adeegsanaa ciidamada baddu bahashaas ku kala soo sameeyay waxaan ahay markaa aad baan ugu faraxsanay waxaana si ahaan u yahay galaaska 2A waxaan isku soo galaasay ilaa wankaygi waxaan ahayn ardayda aad u soo dhiirigelisay inuu halkan soo gaadho ardayda ka soo qayb qaadatay waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanay aad baan ugu hambalyeynaa marka koowaad waxa weeyaan taariibtu waa horta waa shay marka koowaad aad u xun waxa yeelay qof dalkiisii ka tahriibay oo dal kale oo gaalo tagay aad bay horta mashaakil u tahay si ahaan dhalinyarada Soomaaliland waxaan kula talinayaa inaad qof walba hadduu maskaxdiisa adeegsado oo uu adeegsado xagga positive-ka oo negative-ka ka fikirin waxaan u maleynayaa oo aad ugu bogaadeen inay guul gaari karaan waayo waxaan aad ugu boorinayaa ardayda dhalinyarada halkan taagan ardaygan Maxamed Cali ka tirsan waxay soo saaray saasoo kale aad maskaxdaada u adeegsatid heer bad gaaraysa waxaan idin kula talinayaa dhul gaalo in laga tahriibo mooyaan lagu ma si tahriibo in taana aad uga feejignaatan oo dalkiina aamintaan baan idin kula talinayaa ma jirtaa waxaad ka codsanaysaan dawladda horta waxaan aad ugu hambalyeeyaa maamulaha dugsiga oo mar walba horta dugsiga garab taagan dawladda waxaan iyadana ka codsanayaa maadaama iskuulku yahay iskuul qadiimi ah maadaama yahay iskuulada Soomaaliland iskuulka ugu weyn iskuulka horta aad buu u socdaa iskuulkan ardayda ayaa wax ka qabatay maamulaha iskaashanaya in iskuulka qurxintiisa iyo dhismihiisa loo casriyeeyo waayo maadaama iskuulku iskuul magac aad u taariikh badan ku yaalo in aad laga qayb qaato oo aad loo diyaariyo dawladdu qacan ka geysatay dhismaha dugsiga ugu casriyeeyay ayaan kula talinayaa waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulaha dugsiga mar labaad aad baad mahadsantahay degan waa arday maxay ahayd soo saaray qalab aad u fara badan oo practical ah run ahaantii anagu waxaan horta ardaygan ilaa foonkii baan isku galaas ahayn marka maxay ahayd wuxuu soo saaray waxyaabo yar markii dambana foontugu inbuu noo soo bandhigay kadib adigu xalfado balaaran iyo wax baan u qabanay kadibna anaga ayaa maxay ahayd adigu run ahaantii adigu waxaan u arkaa in maxay ahayd alaabtiisan inay uu yahay arday firfircoon oo lagu dhiiran karo والله روحانتي وحنا لها دقاقي هرت ودن كاغ هويي إن دوح كسو سارت بافيعان واي ودن ماذا كلاتو دي وحبا كاغدن ماها ودن كاغ هويي بافيعان إن وحلا قصو محا هذي سارتو مركا دي دايرتي وحان كلاتين لها إنay ودنكينا محا هذي وحكا قبصدان أو مسكحيون كودا أديك سدان كدبنا دي أي صوبان ديغان فكر كودا إنجنير عبد الرشيد وحوي وحنات سميسي وذيقا أمدي وصوبان ديغاي مستقبلك محاد رجينيسا ee ku qorsheysan ama aad niyada ku haysaa ka dhex guuxaya inaad samayso horta imaka waxyaabahan sameeyay wax ka weyn baan doonayaan sameeyo waxyaabo wax ku oola oo ka weyn waxaan imika meesha yaala in doonayaan sameeyo waan ku rajaynay inaan sameeyo wax ka badan oo ka wax fiican baan doonayaan sameeyo way fariin ma jirta aad u diraysid guud ahaanba bulshada ina daawanaysa ama madaxaato ama shacbweynaha kale ee reer Soomaaliland iyo guud ahaan bahda dhalinyarada maxaa daadaadaas oo kala ah ma jirta fariinad halkan u maranaysa maadaama aynu arkayno in badan ardaydii maaragtay yarada ay tahriibayso ama dhalinyarada ay tahriibayaan bal isku soo wada duubo fariimaha kala gaarka fariinta weyn aan diraya waxa weeyaan waxyaabaha markaan sameeyo waxaan u dhex sameeyaa qolkaan seexdo marka waxa ugu weyn aan sameyn karo waa wax albaab ka soo baxaya insha Allah waxaan doonayaa dhul inaan helo markaas aan wax weyn u sameeyo aan wax weyn oo albaabka iyo wax weyn u sameeyo inaga caawiyo dhul aan ku sameeyo wax weyn si aan hamigaygu gaar ma galaysiyo waxyaabahan markaan sameynayo ma soo iibsaynta badan waxyaabaha deegaanka yaalo ma ka sameeyaa marka si ay u fududaato in la soo iibiyo doonaysa qalabka lagu sameeyo ani waqti badan u qaadan diitaa dhalinyarta waxaan u dirayaa inay dalkooda aaminaan wax kastana way qaban karayaan oo ay garanayaan way sameyn karayaan waxay doonayaan inta badan dhalinyaradu waxay u tahriibaan si ay dhaqaalo u helaan qaarna waxay u tahriibaan si ay meelo qurux badan u tagaan intuba dhammaan dalka way taallaa dhaqaale yaraanimo hayso meelo dalxiisaana way jiraan
oo gobolkan Ceerigaabo ee buuraha ku yaala iyo wax naga dhiman ma jiro qofku markuu tahriibayo ama uu dalkiisa ka tagayo inuu fikiro raahdo xageeba maxaad ka tahriibaysaa ilaa waxba laga tahriiba dagaal kama jiraan kama jirto dhaqaale yaraani wada dhaqaale yaraan ka jirto maanta ma yimaadeen oromada Soomaaliyeed lama qodeen shaarka qura wax lagu meeraa 5,000 oromo waxbayna way qabateen meeshii gubanaysa wadada iyaga ka yaacilaa markaa meesha dhaqaale maal injineeradan wadeen arkay marka Turkiga waxa ay leedahay waxba dhisayaan meesha ma yimaadeen dhaqaale yaraan nama hayso dhaqaatiir weyn haysanaa inagu filan dekedeeni weyn leenayo inagu filan oo waxaan doonayeen kala soo degi karno cilmiga beerahana way naqaanaa beerihii laftigooda dhulaan ka beerno oo dhulhadana carradana la way jirtaa inay dhulkooda ku dhaqaaqaan ayaa ka fiican inay dhulka la dhaqaaqaan daawadayaal waan filayaa inaad ka wada bogateen barnaamijku intaasi uu socday dabcan fariintii nayna idin soo gaadhay Cabdirashiid uu idin soo diray daawadayaal tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmay doono dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabad geliyo Somaliland sakalogu tagayo nabada aligiina siiyo noo soo siyaadina aligiina siiyo noo soo siyaadina wada